ninka ragga in duruufiya lagu nacamahayn lacag la'aan jacaylka ayaa ka muhiim wax kasta ka muhiim aad ugu faraxsan inaan nin faqiir la guursan oo nin waxa haysto hanti la guursan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaad channelka Nuuridiin Maxamed. Waa aniga Nuuridiin Maxamed. Waxaan bulshada magaalada Gabriel ku dhaqan weydiin doonaa laba su'aalood kuwaas oo kala ah sidee u arkaan rayga ah nin faqiir ma guursan lahayd. Waxayna u gaartahay gabdhaha. kulli talo waxaan weydiin doonaa kusoo dhawaad channelka Nuuridiin Maxamed adiga magacaaga ku bilaabay. magacayga aniga waxa la yiraahdaa Sihaam Maxamed Cabdi. Sihaamay waxaad nala wadaagtaa rayga ah nin faqiir ayaa la guursan sidee u aragtaa. والله إذا ninka faqiirka anagu kuma dhex jirno wuxuu ilaahay qadaray moontahay baahidana ilaahay baa keena rajaduna way soo socotaa ma lumayso meel aad ubad ku yaala ma lumayso waxa rajaynayaa gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan ninkay guursadaan inay u samraan lacagtuna way iska imanaysaa waxba lama waayayo muhiimadda dhan waxa weeye qofka laguma dhex beerno yaa la isku mana ka sheegay hebel waxba haystaa hebelka waxa haystaa bari ka qabriga la dhigay kale waa isku mid laakiin waxaan u coday hablaha walaalaha ee gashaantimaha gayaanka waxaan u codeynayaa inay maaragtay ka faqiirka ka lacag haystaa way isku mid u yihiin kalgacaylka ayaa ka muhiim wax kasta ka muhiimsan assalaamu calaykum aad oo maas kusoo dhawaad channelka Nuuridiin Maxamed adiga magacaaga ku bilaabay. Sahra Maxamed Yuusuf waan dhawahay. Sahra waxaad nala wadaagtaa rayga ah inaan la guursan nin faqiir ah sidee u aragtaa. أنا أدبر نقول فرح سنين أنا فقير للجورسن وأنا وحيستوها هنتي للجورسدو ويدنا حنانين كرا وبتكنا حنانين كرا يدنا حنانين كرا ويسمع حتى اللي بقى ونسمع قاعد كرت خاصة فرع سنة. مرة واحدة هاي نكون العج هيستوي أنتوا للجورسن. هيستوي اللي بس يبى الدين هيستدين والدين هذا وواحد كنا اتحاد كرنايا من الشيخ وذا الدين تيله يكون حرام وينو هذا. لكن العكس ما لقى مارمان بعض لا مرة لا هذا جورك. ما كل يدي هلا بقى واسمه قاعد كرتان كلها هاي لعقتن والشيء مهين ك سماحة هذا حير هرتي حول دقة هاي كان ريق ما مضى صوت هاي رسمتها عاد بنتاجر سنة جوارا وأنا كفرح سنة أدوم بس تمام هاي عاد بنكاك هذا مام كل channelka Nuuridiin Maxamed waa shaado magacaaga ku bilaabay waan ku dhawahay walaal Fadhiye Cabdi Waaba leeyahay Fadhiye waxaad nala wadaagtaa nin faqiir ma guursan lahayd waan guursanayaa oo qof sidayda bilaadan risqiisana oo wataa marka rayga ah nin faqiir ayaa la guursan ma ka soo horjeedaa ma soo ku raacsan may waa qalad nin walba risqiisu wataa waxa iman doonaa risqooga wataan waana raacayaa daaci saalax waa la xidhay leeyahay sidee u aragtaa ninkaas xabsiga lagu fogeeyo ayaa noo dhan lahaa marka sababaha u jeclaan lahayd inuu xabsiga u sii jiro maxay tahay ninkaas wallahi waxyaabo badan buu hablaha dhinac kaga dhacay marka waxaan oran lahaa xabsiga xoogga loogu fogeeyo marka habluhu sharaftooda in badan buu hablaha dhulka la dhacay aad baa maasada Fadhiye waan hayo walaalo kusoo dhawaad channelka Nuuridiin Maxamed adiga magacaaga ku bilaabay nimco maxamed axmed waa si wanaagsan rayga ah in la yiraahdo gabadhu nin faqiir ay guursan sidee u aragtaa khalad ninka ragga in duruufiya lagu nacamahayn lacag la'aan marka lacag la'aan ragga laguma nici karaa ma nici karaa waa si wanaagsan maxaad ku dooran lahayd adihaan ya adihaan maxaad ku dooran lahayd dee calafkayga wixii la aysiiyeen kastoona gaadhin waa si wanaagsan aad oo maastaa kusoo dhawaad channelka Nuuridiin Maxamed walaalkeeda magacaaga ku bilaabay walaal waa ku dhawahay magacaygu waa Maxamed Sadiq Muumin waana ku dhawahay channelka Nuuridiin waayo maxamed waxaad nala wadaagtaa rayga ah nin faqiir ayaa la guursan sidee u aragtaa adihaan horta rayga waxa soo dhigtay maamadii sheekadayd ee wacdigooday maamadaas siday markii dambe tiri way qaldantay oo de inay su'aashu qaladayd waxaad ku garataaba nabigeenu sallallahu alayhi wasallam waa kilaha markaas faqri ka baqato guurso labada erey iyo ereygay maamadu tiri way seegayaan laakiin yadu waxay tiri ereygaas erey gafa oo iga dhacay buu ahaa dawaana bilaadan uu gafku u dhici kara marka aanu ereyga waxaan leeyahay ereygaas erey aqli gala iyo macquulana ma aha xitaa diiniyan oo ka nabigeenu inoo sheegayna leh markaad faqri ka baqato bade guurso marka faqiirku de tuu nabigu inoo sheegan bay kamid ahayd lagu guursanayba anu su'aasha intaas kaga bixilaa walaalkay aad oo maastaa